dowladda dadka Soomaalida cuqdad bay ka qaadeen kelmaddan la yiraahdo xaqul qalin idinkuna xaqul qalinaad saxideen ma jiray xaqul qalinkan bal noo sharax wada ka sheegsiin walaal waxa weeye de horta xaqul qalinku waxa la yiraahdaa signature bonus waxa weeye de marka aad wax kala iibsataan ee heshiis gashaan de waxa la doonayaa meeshii in xoogaa gacmo la isweydaarsadaa de moogtay dowladdii wuxuun faa'iido hor dhaca صح wax hor dhaca oo faa'iido inay meesha ka hesho moodee ay aragto de meeshii in kamanigu serious hawshan ka yahay moogtay marka runtii waa wax iska standard oo dowladaha muxuu ahaa ka dhex mara dowladaha dalkooda la baarayay sharciga internationalka ay baarayaan marka wax imika de moogtay bilaabmay maaha wax gacanta hoosta la isaga dhigay anagu markaanu dowladii sharcigii aanu soo gelin dalka markaanu signature bonuska ka qaadnay TV-gan ka soo saaray waxa uu ahaa intuu ahaa maaliyadda haddaad wasaaradda maaliyadda tagto recordkoodii waa la hayaa mid walba wuxuu bixiyey intuu bixiyey oo markaa wax transparency ayuu anaga waxaygu ahaayeen marka runtii maaha runtii wax yani keyr alcaadi ahoo yani laleeyahay waxbaa la weydiiyey nimankoo moogtay moogtay xoogaa dhiibeen moogtay aqal shaxaad oo kale maaha waa wax standard ahoo moogtay sharciga ku dhaqmaan markay u imanayaan dowlad moogtay dalkeeda baarayaan